Manta 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 ومالي وين manta 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 مدحت بناني manta 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 ومالي وين manta 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 ومالي وين manta ku faraxsanahay inaan mar kale ku dabaaldegno magaalada Edmonton annagoo u dabaaldegayno 40 oo la jirsatay asaaskii jabhadda wadaniga xoreynta ogaadayna waad maqasheen heystii calanka waxaan rabaa horta inaan si gaar ah aan xildhibaankeena Shariif Cabdiqaadir Cawil candidateska cararaya oday dhaqameedka cibaado xirti mahad oo ah hoggaanka ugu sareeya ee abaabulka bulshada jaaliyad aan ku soo dhaweeyaan oo guddiga waan ku faraxsanahay inaan wada arko soo wajiyo badan oo caadi aan isnaqaanayn way jireen wajiyo kala cusubna waan arkay laakiin hooyo Soomaaliyeed oo ila hadlaysay ayaa aad emotion badan iyo waxyaabo badan xasuusay marka waxaan maqlaynay heesta calanka jooxa markaad dhageysanayseen ama ogaadeenaya calankan haddaad u fiirsataan waa calankii Soomaaliya calanka marka waxaad arkaysaan calankii Soomaaliya oo rinji cas la mariyay hoostiisa macnaheedu waxa weeye dhiigii Soomaaliyeed ee u daatay halganka ama ha ahaado dhinacaas waagii 1977ka ama ka horeeyay ama ha ahaado kii jooxa ay samaysay markaad calanka aragtaan oo dhiig ka daadanaya calanka oo aragtaan isagoo oo dhaawacan wuxuu u dhaawacan yahay waxa weeye waa Soomaalinimada jooxo waxay u qaadatay calankii Soomaaliya Soomaalinimay u qaadatay dad baa markay maqlaan ogaadeen always confusion ku dhaca maxaa kaleeto oo calanka aad ku aragtaan waa cagaarkaas wuxuu ka turjumayaa barwaaqada deegaanka Soomaalida barwaaqada ogaadeenaya ilaa ay hadda waxaad maqlaysaan in la dhahayo bil ka hor gaas baa laga soo saaraya deegaanka Soomaalida gaaska ugu badan Afrika ayaa bilaabaya bil gudihiisii wax la mid in laga soo saaro waad maqlaysay prime ministerka isagoo oo dadka la tashanin isagoo oo siyaasiyiinta deegaanka la tashanin in uu yiraahdo gaaska laga soo saarana waan ogahay qoliyo BB inay meesha joogto waan soo dhaweynayna kuwa jooga ee aan jooxadeynayna laakiin deegaanka Soomaali baa iska leh dhulka waa dhul Soomaaliyeed calanku waa calan Soomaaliyeed oo dhiig badan uu ka dhacay dad badan oo Soomaaliyeed ay ku dhinteen qof aanan garanaynin qof walaalkiisa ama awowgiisa ama aanan garanaynin waan u jeedaa Cawil iyo generaalkii waan u jeedaa oo meesha Cabdiqaadir oo fadhiya dagaalkaas dad badan oo ku dhintay waa la wada garanaya intaas waa intii calanka mar kaleeto waad ku mahadsantihiin inaad ka soo qayb gashaan dabaaldegan ma aha waa xasuusin halgan ayaa socota xasuusin halgan weeye meel walba maanta annagoo xor ah ayaan halkan ku dabaaldegaynaa magaalada Edmonton laakiin gabdho badan iyo wiilal badan oo ka soo jeeda deegaankaas Soomaalida ayaa sidaan anaga hadda u dabaaldegayna aan u dabaaldegi karin kuwa badan ayaa hadda la xiray gabdho hadda waxay la sheegayay 4 gabdhood oo jijiga ku xiran oo qaar ka mid ah waa haddan ka hadlaya kulay walaalkay saaxiibkay Mustafa uu daawanay haddan ka hadlay 4 gabdhood baa hadda xiran gabdhahaas imika waqtigan xaadirka xiran markii Cabdi Ilay xukunka hayay jeelka ayaa loogu geyn jiray caruurtooda qaar ka mid ah in ay ku naas nuujiyaan kuwii waqtigii Cabdi naas nuujinta ku sameeyay jeelka loogu geynay hooyo hadda ii sheegayso hooyada ayaa imika iyadana ku xiran yihiin jeel dad baa dhacay waxba isma bedelin antaa ma dhahay wax badan baa isbedel badan baa dhacay waxyaabo badan oo horumar ah jira laakiin waxyaabo badan oo ficiltan oo foolxuma ayaa deegaanka ka socda
idinkama sheekeynayo deegaanka 2 bilood baan dhex maray meel walba waan soo taabtay asdii kale waa taaban kartaa deegaanka markaan anigoo dhex maraya ayaa waxaan wareystay walaalahayna gabooyaha meel ay degan yihiin magaalo ay degan yihiin waan ku faraxsanahay horta magaalo in loo sameeyay gabooyihii maanta deegaanka Soomaalida laakiin magaalo ay degan yihiin ayaa wareys ka sameeyay waa deegaanka Soomaalida ku dhaxtaan laakiin waa Oromiya ka tirsan meeshaas waa meel 8 saacadood aan ku xidhnaa waan soo arkay waxa deegaankeena ka socda waxa weeye waa contradiction badan baa deegaanka ka jira wax badan oo fiican baad arkaysaa haddana waxaa arkaysaa wax badan oo fool so wax sida isku balance gareynaya waxa weeye dadkeena wax garadka inay dawladda iyo dadka labadaba ay faansiiyaan waxaan laakiin aad uga xumahay oo halkan aan ka dhaliilaya oo aan rabaa fariintan inay gaarto qalbi dhagax iyo hogaaminta online ee maamulka BBda la shaqeysa wixii dhici jiray 10 sano ka hor ee aan diidanayn maanta inaad idinku aad hor istaagtaan aad hor martaan oo aad samaysaan ma aha waxaan ogolaan karo inaad tan si fiican lii maqlaan u baahana jooxo caruurtooda dhalinyartii halganka ahaa haddii la kala fikir duwan yahay waxay xaq u leeyihiin in ay dabaaldegaan oo isna annaga halkan ugu dabaaldegayno si laeg ay ugu dabaaldegaan waa xaq aan baryo lahayn waa xaq aan baryo lahayn halganka hadda uu bilaabay mar walba oo la isku yiraahdo oo la yiraahdo waxa uu dhamaanaya marka uu buusiso meel walba oo deegaanka Soomaalida ka mid ah meel walba oo adduunweynaha ka mid ah dabaaldeg aanan kala joogsaneyn baa ka socda oo dadkii ay tusayaan shucuurtooda iyo waxay rabaan ay calankan ku saabsan aad u jeedaan wax la ilaawi kara ma waxaan rabaa inaan soo gabagabeeyo oo aan laba qodob soo gabagabeeyo waa sax horumar qurux badan baa jijiyay ka socda waa sax jidad ayaa ilaa waqtigii xadiid la dhisay waa sax jaamacado ayaa la dhisay deegaanka Soomaalida waa sax siyaasadii hadda sidii waayay horatay u adkeed uma adka oo waxa malaysa inay wax yar jilicsan deegaanka Soomaalida ayaa jaamacadahan hadda sheegay dhisan jijiga iyo ka dhisan qabidahare ma aha jaamacado ay Soomaali ay dhigtaan jaamacadaha waa less than 20% way jaamacadaha dadka Soomaalida qowmiyada kale ayaa ka wada dadka ma fahmiyaan qabidahare jaamacad fiican baa ku taal way fiicanta haddii caruurta la dhigayn maxay jaamacad ku tahay jigjiga jaamacad fiican baa ku taal oo fiican oo horumarnay haddii caruurta la dhigayn maxay ku taal ciyaalka inay dhacayaan so taas waa waxbarashada dadkeen wax ma dhistaan wax ma karsadaan wax ma dhaqdaan gurigooda kama adeegtaan jidadka u jeedeen jigjiga laga dhisay hal qof oo Soomaali oo badil intuu qaatay dhisay kuma jiro hal qof waxaa la yidhaahdaa mataqaanaa qof walba qofkii wax u kala dhista ayaa dhulka iska leh hadalkaasina inuu ka dhaadhacaan doonaya qofkii dhulka dhista ayaa dhulka iska leh Chinese ama Indiankii joogi jiray Kenya kuwii South Africa joogay miyay ka tageen way joogaan Chinese-kii halkan dhisay ee dhulka miyay tageen way joogaan so dhulkii waxaa yidhaahday wax ma dhistaan dhismihii waxbarashadii waxbaran macallimiinta boqolkiiba say 10% or 15% way Soomaalida wax macallin so macallin haddaan haysan waxbarashada aan sameyn waxba dadka aan baranaynin waxna aan dhisan karaynin gurigaaga aan ka shaqeysan karin because booyasooyinka oo dhan waa wadada kaleeto waxaan rabaa inaan oo idinka tagaya su-aasha dhulkaas yaa iska leh dhulba oo yaa kula gaaskiina markii la soo saarayay hal qof oo deegaanka siyaasiyiintiiska xataa been ogeyn prime ministerkii baa wuxuu yidhi qofna uma sheegin waan qarinayo goday baan tegey waxaan iska dhigayay in aan beeraha aan ka hadlayno
laakiin gaaskii wuu tegey dhulba oo yaa iskale haddaba waaya intaasaan ku joojinayaa waxaan rabaa oo keliya aniga hal codsi baan ka samaynayaa dowladdan deegaanka ah number 1 xorinta qoolka la sheegaya waa in la horumareeyo number 2 waa in wax kale ayaa naloo samaynin caruurtaas uun waxa barta inta la dhisayo meelo bujidad iyo wax badan oo kale miskaxda caruurtaas ha noloo dhiso waxbarashada ha la baro waxbarasho waxa kale next 10 years caruurtaas una waxa bartaan iyaga meel walba la kubin garanaya intaas kadib idinkoo mahadsan waxaan rabaa inaad igula soo dhaweysaan cibaado xirsi mahad cibaado waxa weeye halgamaa aad u weyn oo taariikh kulle deegaanka Soomaaliya dad magaca jabhadda iyo mataqaanaa maqashaan oona leh resistance-ga aabahee 1964 ayuu soo dagaalamaya walaalaheed dhibka ugu badan ayaa soo gaaray waqtigii cabdiile dumarka raaliga ahaada dumarka iyo walaalaheed gabdhaha walaalaheeda waa gabdhaha halganka ugu weyn wada ilaa ay haddana wada iyada la'aanteed oo iyaka la'aanteed waxa weeye halgankan sokor badan baa ka maqnaan lahayd